love you my baby, I love you my baby, love you my baby. fadlan haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku diran yahay fadlan ha fiirsan. السلام عليكم غيرتوين السلامي ما انتو حاكا ورمينا صاحبكي iyo dhibaatada uu ku qabo dumarka sida loo shukaansado. Saaxiibkay waa kana magaciisa waa Yuusuf. Asaga dhowr jeer ayuu isku dayay inuu dumarka shukaansado balse asaga ma lahayn wax soo jiidasho dhanka dumarka ah. Anigana mar walbo niyadda ayaa u dhisi jiray asaga, laakiinse eedinta dumarka ayuu mar walba ii sheegi jiray inayna u baahnayn nin iyaga daryeeli kara. asaga wuxuu ku mashquulsanaa jiray marka waqtiyada firaaqada leenahay inuu isku dayo inuu shukaansado gabdhaha. maalin maalmaha kamid ah gabar ayay gaal fariintiisa noqotay. asaga way isfahmeen. maalinka kamid ah anigana waxaa soo aaday gurigiisa si aan u booqdo asiga iyo saaxiibtiisa cusub. laakiin waxaa maqlay dhawaaq ka soo baxaya qolka asaga oo ku hanjawaya gabartii saaxiibtiisa. aniga waa naxay argagax hay si saa'ida weliba waana yaa waxaa ka qaldan saaxiibkay. waxaan u qaatay inuu dilaayo naagta, laakiin waxaa isku dayay inaa waco asaga. markaas ayuu idhahay soo gal. markaas soo galayna waxaan arkay wax aad u cajiiba. waxaasoo ahayd inuu gacmihiisa dhiiga da-ayaan iyo ninkii daayaan jawaay iyo wejigiisa oo dhiig iyo cabsi ee ka muuqato. marka dambe ayaa waxaa isku dayay inaa weydiiyo naagti aaway, laakiin waa cabsaday. marka dambe ayaa waxaa dhahay saaxiib maxay waxaa kaa muuqda aawayna saaxiibtaada cusbeed wuxuu ii sheegay inay baxday. aniga waa soo baxay meeshii aan ku kulmi jiraa imaanay kadibna waxaan u wacay asaga. marka dambe oo iga qabo waayay waa soo baxay. anigoo jidka socda ayaa waxaa arkay qaylo iyo buuq oo derbiga gadaashiis ka soo baxay. isagooba saaxiibkay oo haddana kale care iyo xanaaq kala duldhacay oo dhahay idinka ma doonaysaan xiriir toosa, khiyaano iyo bakti. laakiin dadkii ayaa ka qabtay asagoo dumarku xanaysan. wejigiisa maalintaas aad ayaan uga baqay. xarunta booliiska ayaa lagu soo qabtay asagoo ku eedeysan inuu dumarka qashqashaado. sabab marka aniga gurigeyga ayaan imaaday. waxaa isku dayay inaa booliisku u sheego arrinka saaxiibtiisa ugu shakisanaay inuu dilay oo maalinkaas dhiig korkiisa dhan wada ahaa iyo cabsi saa'ida wejigiisa ka muuqatay. aniga waxaa sameeyo aan garawaa saaxiibkay inaan baxar geliyo. runtii waxay ahayd qiso cajiiba abid weligay la kulmo.